waalidka naftiisa inuu kala xaq badan yahay uu rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam oo xaq ugu horeeya hooyo ay leedahay ummuk adigu inaad cayso iska dhaafe waxa xaraam ka ah inaad labadaada waalid u soo jiido in la caayo oo la aflagaadeeyo say ugu soo jiidi kartaa waxaad ugu soo jiidi kartaa qof aad markaa isku xanaaqdeen ayaad waalidkiisa aflagaadeynay asna muxuu sameynaa marka muxuu reebana waalidkii haddaad aflagaadeysay adigana wuxuu aflagaadeynaa waalidkaagii aflagaadeynaa maxaad samaysay marka waalidkaa waxaad u soo jiiday xumaato iyo aflagaado iyo caayaad u soo jiiday fakaannamaa sabaybta waalidayk adoona waalidkii toos u aflagaadeeda la mid aabbahay hooyada adigu caayay dembigeeda lagu qori marka tarjamada macnaheeda sidaasaa loola jeedaa qaala limaam قال جاء رجل إلى رسول الله ويمد صلى الله وسلم وبارك عليه فقال نك وحر يا رسول الله رسولك إلهي من أحق الناس ذاتك يا أبو حق نمبضا بحسن الصحابة لصاحب نقشة إذا وناك كذا قفك أن صاحب تنمدي سوناجيو يا أبو حق نمبضا قال رسولك صلى الله عليه وسلم أمك هو يدعك أبو حق نمبضا والدك نفتيس إنه كلا حق بدن يهي ورسولك تلمامي صلى الله عليه وسلم وحق أبوه الرأي هو إلى ذهب أمك قال مركز وحور هذا ننكي قال مركز رسولك صلى الله عليه وسلم قال ننكي وحور ثم من يكحيك هوي قال رسولك صلى الله عليه وسلم أمك هوي هذا كسر علي رسولك صلى الله عليه وسلم قال مركز ننكي ثم من يكحيك هذا قال رسولك صلى الله عليه وسلم أمك سدح جار ورسولك صلى الله عليه وسلم وهو يكسر علي قال ننكي ثم من يكحيك مركز قال ثم أبوك markii afraad aabbaha la sheegay marka hooyadu maraaxisha aad adagay soo marayso de wayba tahayba inay aabbaha ka xaqnimo badan tahay leena uurkii ay ku siday iyo maragtaahay foosha xanuunkeedii iyo korintii iyo naaskeedu inta la jaqayay aabbo wuxuu meesha soo gali oon markii caruurku maragtaahay xoogaa uu soo kordhow soo kobco iyo inuu xoogaa qarashkiisa xoogaa bixiyo oo xoogaa uu tarbiyeeyo kor ka ogaado xogta hoosoo dhan iyo uur ku qaadista dhan iyo waxaasoo dhan dhibaatooyin hooya maraysa hooya intaasoo dhan maraysaw marka saddex xaq ayuu dheeraysiyey rasuulku sala allahu wasalam wabaarak caleyh hooyo qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala wa qaala ibnu shubruma waa qaaligii cabdullaahi ibnu shubruma alqaadi cabdullahi ibnu shubruma alqaadi iyo wa yaxya bnu ayuub alkuufi waxay yidhaaheen xadahanaa abu zurca iyagu taxdiiday uga wariyeen abu zurca cumaarat ibnu alqacqaac ibnu shubruma can abi zurca labadan sheekhna xadahanaa abu zurca marka labadan sheekh qaadiga iyo yaxya bnu ayuub waxay mutaabacaynayaan cumaarat ibnu qacqaac cumaarat ibnu qacqaac xadiiska wuxuu ka qaaday abu zurca labada sheekhna xadathana abu zurca iyaguna milahu mithla xadiisi cumaara wey marka koray mutaabacaynaya xadiiskii cumaara xadiiskii oo cumaarat ibnu qacqaac qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacaala baabun laa yujaahidu ila biidni alabaweyni ayuu baab yahay baabun hada midkani baabun baab wey laa yujaahidu shaksigu ma jihaadi karo ilaa biidni alabaweyn labada aabbe idankooda maahan labada aabbe aabbaha iyo hooyada xataa jihaadkii gaalada lagula dagaalamayey oo tawxiidka lagu kor yeelayey haddaysan waalidku kuu fasixin ma jihaadi kartid mana aadi kartid qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala xadaثana musadad ibnu sarhad albasriy qaala xadaثana yaxya yaxya alqaطaan can sufyaan thawri wa shucba qaala labadooduba waxay yidhaaheen sufyaan thawri iyo shucba xadaثanaa xabiib ay yidhaaheen labadooduba waa xabiib ibna abi haabit قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن كثير العبدي البصري قال أخبرنا سفيان الثوري عن حبيب السابق في الإسناد وحبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس الشاعر المكي قبيايو هير مكة أبي العباس الشاعر المكي عن عبد الله بن عمرو قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ننا النبي كوير أجاهد ما جهادي كرا قال رسولك صلى الله عليه وسلم لك أبوان لبا أب مالذا أبي هو يمنوليهن قال نعم قال رسولك صلى الله عليه وسلم ففيهما ففي برهما aabbayo hooyo baarinimadooda fajaahid ku jihaad iyaga jihaadkaaga wanaagsane aabbayo hooyo inaad ixsaan u samayso oo u khidmayso ood u adeegto ood baari u noqoto iyaga jihaad ka dhig u yidhi rasuulku sala allahu wasalam wabaarak caleyh marka xaqoodu saasuu u weyneeyey rasuulku sala allahu aleyh wasalam aabbayo hooyo qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala baabun laa yasubu rajulu waalidayhi baabun haadaa midkani baabun baab wey laa yasubu rajulu ninku sabab uma noqon karo macna sabab ayaa loola jeedaa ninku sabab uma noqdo waalidayhi sabba waalidayhi labadiisa waalid in la caayo isagu ma caayayo loolama jeedo daahirka tarjamada saasaad u malayn laa yasubu rajulu ninku ma caayayo waalidayhaad u malayn laakiin daahiru tarjama sidaa macnaheeda maahan laa yasubu rajulu ninku sabab uma noqon karo waalidayhi sabba waalidayhi labadiisa waalid in la aflagaadeeyo la caayo
adigu inaad cayso iska dhaafe waxa xaaraam kaa ah inaad labadaada waalid u soo jiido in la caayo oo la aflagaadeeyo say ugu soo jiidi kartaa waxaad ugu soo jiidi kartaa qofaad markaa isku xanaaqdeen ayaad waalidkiisa aflagaadeynay asna muxuu samaynaa marka muxuu reebanaa waalidkii haddaad aflagaadaysay adigana wuxuu aflagaadeynaa waalidkaagii aflagaadeynaa maxaad samaysay marka waalidkaa waxaad u soo jiiday xumaato iyo aflagaado iyo caayaad u soo jiiday fakaannamaa sabaybta waalidayk adoona waalidkii toos u aflagaadeeda la mid aabbahay hooyada adigoo caayi dembigeeda lagu qori marka tarjamada macnaheeda sidaasaa loola jeedaa